السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما فوريفو سلامتي ولا ليال ميل كستا joogtaan ba ما شاء الله maanta halkan waxaan joognaa inaan hambalyo aan la soo koobi karin u dirno dhammaan leaderiska ku guuleystay dalxiiska Dubai ee lagu qaban doono insha Allah Dubai iyo Imaaraadka Carabta oo ka qayb gali doona bandhig ballaaran oo caalami ah oo shirkadu sanadkiiba hal mar isku imaanti guud oo caalami ah ay ku samayso kaasoo dhammaan liidaro badan oo Soomaaliya ay ku guuleysteen sanadkan waxa farxad kala mudan in dhammaan liidaradeena daafaha caalamka kala jooga ee Yurub jooga America jooga Africa jooga inay isku iman doonaan Imaaraadka insha Allah marka taas oo sidoo kale dad kala duwan iyo bulsho kala duwan oo kumanaan gaaraya ay ka soo qayb gali doonaan bandhiga marka farxad weyn bay noo tahay muddo dheer coronavirus iyo xaalado jiray daraadeed maanta waxaynu helnay chance u helnay inaynu ka qayb galno oo xaaladahan ay markii kala fududaadeen aynu ka qayb galno marka ma sha Allah farxad weyn bay noo tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu sanadkan aynu kaga qayb galno dalka Imaaraadka Carabta sidoo kalena waxa weeyaan waa maanta horaanteedii weeyaan marka bandhigyo badan oo intan ka sii ballaaran ayaynu insha Allah ka sii qayb gali doonaa oo daafaha caalamka kaanas baa ku xigta insha Allah Mexico marka run ahaantii farxad weyn bay noo tahay inaynu helno dalkeena aynu ku helnay fursad noocan oo kala ah oo caalami ah in dalkeena ku helnay ma sha Allah marka waxaan leenahay dhammaan dadka aan ku jirin ganacsigan iyo businesskana sidoo kale ka faa'iideystaan leaderska shaqeynayna dadaalkooda sii badiyaan si guuleyntan ka badan ay sii gaadhaan waxaan leenahay forever broad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريفر فاميلي دمانتنا أدمان إسلامنا ولا ليال waxaan maanta halkan hambalyo aan la soo koobi karin aan uga direynaa dhammaan leaderska qaaliga ah ee ku guuleystay dalxiiska weyn ee caalamiga kaasoo lagu qaban doono magaalada Abu Dhabi ee isku taga Imaaraadka Carabta kaasoo ka soo qayb gali doonaan dhammaan leaderskii ugu dadaalka badnaa ugu activesanaa sanadkiina dhaafay ee 2021 waxaan rajaynayaa inay ka qayb gali doonaan sanadkani Soomaali aad u fara badan oo noqon doonto sanadkii koobaad ay ka qayb galaan Soomaali intan leegi waxaan idin leeyahay dhammaan leaderska kale aan ku guuleysanin in idinkuna aad ku guuleysataan oo 2023 ay isku diyaarisan oo 2022 hadduu bilow yahay inaynu shaqo adag aynu qabanno saynu 2023 aynu uga soo dhex muuqano dalxiiska weyn ee caalamiga waxaanu leenahay forever proud dhammaan forever proud meel kasta joogtaanba waa mar kale iyo walaalkeen leader Xamse Maxamed ma sha Allah maanta waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin hawada u diraya dhammaan leaderskii incentives ku guuleystay dalxiiska ka dhici doona waddanka United Arab Emirates gaar ahaan magaalada Abu Dhabi ma sha Allah waxaan ka qayb qaadan doonaa leaders badan oo ka iman doona dhammaan deegaanada Soomaalida haday noqoto gaar ahaan soo Hargeysa Muqdisho Jigjiga meel badan insha Allah laga iman doona sidoo kale waxaa laga iman doona leaders badan oo Ingiriiska iyo meelo kala duwan ka imanayno waxaan la isku mid doonaa Abu Dhabi dalxiiska guud ee kabariga uu qaban doona sanadka 2022 ma sha Allah waa dadaalkii juhdigii la qabtay sanadkii tagay ee 2021 marka waqti badan oo COVID-19 iyo corona uu jiray uu kala xidhnaa maanta ma sha Allah waxaan noo fahmi doonaa mar kale dalxiisadii kabariga oo anigu aan ka mid ahay adiga ila hadlay aad ka mid noqonto insha Allah dhammaantii waxaan leenahay forever proud haddaba ma ka mid tahay dadyowga caalamiga ee ku shaqeysta kambaniga weyn ee Forever Living Product hadday jawaabtu haa tahay isku diyaariya dalxiisyo caalamiya oo aad kaga qayb geli doonto dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxaanu ku leenahay ku soo dhawow ganacsi caalamiya isla markaana ku shaqeyso kartidaada iyo awoodahaaga oo dhammaystiran